weligay ismaan odhan urkaygana kumay jirin ume ooridaade amarkaa qoraaye isaseega nagu dhacay waa amurinaga weyne. maalin wanaagsan saaxiibayaal, waxaad ku soo dhawaataan qaybta 6 ee qisadiisa Seeg Jaceyl. sheekada maanta waxay ku bilaabanaysaa. Samatar wuxuu ku wargeliyay Suleeqa inuu u soo dhiibay hadiyadii uu sheegay qofka u soo qaadayna uu yahay wiil saaxiibkiisa kaasoo u soo socday magaalada ay Suleeqa ku nooshahay halka ay degan yihiin iyo lambarkeedana uu soo siiyay, isagana uu soo wici doono. Suleeqa ayaa tiri waad mahadsan tahay Samatar, waan ku faraxsanahay hadiyadaada, waan sugayaa hadduu alla idmo oo waaba sugi la'ahay inay soo gaarto ay hadalka raacisay. Ha sugi waayin, waa ay ku soo gaari doontaa kolley, inaad ka heshana waan rajaynayaa. waxa ugu weyn Suleeqa markasta isweydiisa ayaa ah muxuu sidan oo dhan kuugu soo jiidanayaa, ma isaga ayaa ku jeclaaday mise inaad jaceylkiisa u waalato ayuu doonayaa Samatar. ma oga miyaa in jaceylkiisa uu biyo dhigay qalbigayga oo aan si xooga u doonayo. laba barida kala war la ayay Soomaalidu tiraahdaa, war jiraaba hee xakaaru iman. Suleeqa waxaa soo gaartay fariin u sheegaysa in alaab loo wado dibna looga keeni doono. waa yahay walaal, waad mahadsan tahay, warkaaga horay ayuu ii soo gaaray, waan ku sugayaa marka aad nasato ii soo sheeg, ama mooto ayaan kuu soo dirsanayaa oo alaabta iigu soo dhiib, ama waan is arki doonaa insha Allah. waa yahay walaal, hadduu alla idmo ayuu yiri inankii alaabta u waday. habeenkii oo dhan waxay isleeyahay Suleeqa, talow maxay hadiyadani ay noqon karaysaa, kolley waan arki doonaa. Samatar inuu iga yaabsado ayuu doonayaa markasta. deetana ayadoo kaligeed sidii iskula sheekaysanayso kaligeed baa waxaa u wacay walaalkeeda Cilmi. kaalay abaayo, ka waran haddaan dalxiis yar oo badda ah aadno, soo adigii badda aadka u jeclaa. aboowe ma igu kaftamaysaa ayay tiri. maya, sideen kuugu kaftamayaa, waanu israacaynaa maalinta axadda ah ee nagu soo aadan. ee sidaas ugu boqoradeeda intay isku duubtay ayay laabta gelisay walaalkeedii Cilmi. waad iga farxisay aboowe, walaalkaa wanaagsan dunida inuu joogo ilama ahan, mahadsanidku mannaan jeer ayay tiri Suleeqa. farxadaada ayaa wax walba igala weyn, ugaasadaydii ayuu si naxariis leh u yiri walaalkeeda Cilmi. farxadeeda ayaa laba jibaar noqotay Suleeqa. inta ay qolkeedii ku soo noqotay ayay si niyadaha u tiri, marka aad haysato walaalku jecel waxaa lagu sameynayaa wax waliba aad jeceshahay. waa nasiib badanahay maadaama aad adigu walaal ii noqotay. mahadsanid aboowe, ilaahay ii kaa xifdiyo. deetana sariirteedii ayay isku tuurtay oo inta ay barkinta laabta gashatay ayay taleefankeedii la soo booday. misana waxaaba u yaala qaybta fariimaha ee barta WhatsApp-ka cod dheer oo loo soo duubay. haddii ay daartayba waa heesay aad u jeceshahay Suleeqa iyo codkii naxariista badnaa ee saaxiibkeed Samatar. heestu waxay ahayd hees cajiib ah, miro culus ay ku jiraan. erayadeeda waxaa ka mid ahaa: ilka u eg daruurtee ciradkaagan dogolka ah mawluhu ku daahiyo. adina dhuxusha moodiyo barmardi muuga faydiyo sacan qaroorka soo degay intaas markii ay maqashay Suleeqa xaadeedii oo dhan ayaa halhal u istaagtay. hindhaheeda ayaa naxariis ilmeeyay. ma erayada heesta in iyada loogu talagalay ayay u malaysaa, mise codka Samatar ayaa qalbigeeda dhaqaajiyay oo sababay in indhaheeda ilmo ku soo istaagaan. waxa uu sii raaciyay heeskan adiga ayaa lagugu talagalay malaha. waxay si hoose u tiri, waxaanad ogeen inuu jaceylkaaga iyo xiisaha aan kuu qaba gilgilay qalbigayga sida dhulgariirkii oo kale. kaalay ma waxaad ogaatay inaan kuu kaliyoobay oo jaceyl weyn kuu qaaday malaha. sirdoon baa tahay adiga. ma aqaan. ugu dambeyn waxa ay tiri Samatar, habeen wanaagsan, waan sii seexanayaa, waana kaaga mahadcelinayaa heeska quruxda badan ee aad ila wadaagtay. inankii hadiyada waday waan isla hadalnay, markaynu is aragno oo alaabtii soo gaarto ayaan kuu soo sheegi doonaa insha Allah. habeen wanaagsan boqorad Suleeqa, hurdo caafimaad la seexo ayuu Samatar hadalkii ku soo gabagabeeyay. qaybtii 6 oo maanta ka duwaneed qaybihii hore ee sheekadana. dhegeystayaal iyo daawadayaal waa inaga inta. waad ku mahadsan tahay haddii aad dhamaadka sheekada ila soo gaartay. haddii ay ku cajab gelisay la wadaag saaxiibadaada oo sheer gareey. wixii aragtiya tusaalahana noogu reeb barta hoose ee commentiga. intaanu ku kulmi doonno qaybaha xiga ee sheekada waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.